السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسر إذا لهانتين بدأ وضيال ملك الساعة نقدر ونسار halkani waa Darwish TV waad ka daawataan barta internetka www.darwishtv.com kusoo dhawaada ururka dhalinyarada SSC oo sido oo cambaareeyay dagaalkii ka dhacay Kalshaale iyagoo baaq u diray maamulka Somaliland iyagoo baaq u diray shacab weynaha SSC haddaba waa kan markii ugu horeysay gudoomiyaha dhalinyarada SSC ee sido Maxamed Cabdi Fooqiye بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين وحان هلكن مركا ugu horeysa ka salaamaya ummadda islaamka ah ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogto khaas ahaan shacabka SSC meel kasta ay joogaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mar labaadkana waxaan ku salaamayaa SSC inta hadan ka gudubna salaanaha waxaanu halkan ka cambaareynaa maleeshiyaadka SNMT Soomaalidiidka ah ee sida xaq darrada ah ku jooga gobolada SSC kana wada fidnada joogtada ah waxaanu sidoo kale hambaliyo iyo bogaadin u diraynaa ciidamada daraawiishta xaq u dirirka ah ee dhirbaaxada kulul u geystay ummadii doonaysay fidnada ugana soo haajiray dhulkoodii sidoo kale waxaanu halka tacsi u diraynaa mujaahidiintii ku shahiiday dagaaladii hadda la soo dhaafay sidoo kale waxaanu leenahay eheladoodii iyo qaraabadii iyo asxaabtii ay ka tageen samiri iimaan ilaahay idinka siiyo ilmaadirayaal walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ina alfitnata ashaddu min alqatl waxaynu ogsoonahay in dadkaasi ay duulaan yihiin si xaq darro ahna ay nagu soo doonteen waxaan u hambaleynayaa ciidamada daraawiisheed ee xaq u dirarka ah ee u dhashay dhulka SSC in jawaabta culus ay ka bixiyeen weerarkii xaq darrada ahaa ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka Soomaalidiidka ah aad iyo aad ayaan ugu hambaleynayaa taas waxaan ku sii dhiirigelinayaa in ay mar kasta u taagnaadaan difaaca dhulkooda hooyo ilaa ay ka soo haynayaan ciribta ugu dambaysa ee dhulkooda kadibna ay sugaan amniga waxaa sidoo kale xusid mudan shacabka jooga walibana dhulkii iyo kuwa dibadda joogay reer SSC qaabka xilkasnimada ah ay ugu kaceen dhulkooda iyagana waxaan leeyahay inaad si laba jibaartaan maahe marnaba ha ka seexanina maalinku hadduu idin dhaafo maalin labaad ma soo noqonayo waxaan ugu baaqayaa khaas ahaaneed dhalinyarada SSC ee muwaadiniinta ah meel kastay joogaan khaas ahaan kuwa dibadda jooga inay u kacaan dhulkooda inay ka qayb qaataan nin walba iyo gabadh walba heer allaale iyo heerka ay awoodaan inay taa u istaagaan ayaan mar kasta ugu baaqayaa uguna baaqayaa waxaan marnaba dhacayn shacabka daraawiisheed ee xaq u dirirka ah ee weligood u soo halgamayay midnimada ummadda Soomaaliyeed inaysan aqbalayn dhiig cabayaasha jooga Hargeysa dulmiga ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan sidoo kale xasuusinayaa fidna wadayaasha Soomaalidiidka hogaaminaya maleeshiyaadkana soo diray dhibaatooyinka iyo fidnada ay ka dhex wadaan ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah inaan marnaba loo ilaawin dib kastay geystaanna tiirka loo soo taagi doono maalin allaala maalinkay noqotaba ugu dambeyntii waxaan naftayda iyo dhammaan intay dhageysanaysaa farayaa alla ka cabsi iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed ee muqaddaska ah in la ilaaliyo hawshanina waxay u furan tahay qof kasta oo dhiig leh oo Soomaaliyeed inuu u istaago maanta والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mahadsanid Maxamed kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada SSC ee Sudo Maxamed Cabdi Fooqiye waxaa halkaas isna ka hadlay xogayaha guud ee ururka dhalinyarada SSC ee Sudo Salabaan Qowdhan bismillaahir rahmaanir rahiim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan halkan ka salaamanaa dhammaan shacabweynaha SSC meel kastoo ay joogaan gaar ahaan ciidanka SSC ku sugan jiidaha hore
hadaanu nahay ururka dhalinyarada SSC hadaanu nahay ururka dhalinyarada SSC sidoo waxaanu halkan cambaarayn iyo dhaleecayn uga soo jeedinaynaa ciidamada duulaanka ku soo qaaday deegaanada SSC ee ka wada ciidamada duulaanka ku soo qaaday deegaanada SSC ee halkaasi ka wada kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed iyo burburka iyo barakaca u geysanaya shacabka nabadda ah ee halkaasi ku noolaa aad baan u cambaaraynaa waanu ka soo horjeednaa waxaanu ugu baaqaynaa dadka halka keensaday ee ku nool gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya inay si degdeg ah uga baxaan yaanu ugu baaqaynaa waxaanu sidoo kale hambalyo u soo jeedinaynaa ciidanka xaqu-dirka SSC ee ku sugan jiidaha hore sida heerka sare ah geesinimada ah ee u difaaceen sharaftooda iyo karaamadooda gacantana ugu soo dhigeen deegaamadooda waxaanu halkan tacsi uga diraynaa dhammaan shacabweynaha reer SSC gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabadii ay ka geeriyoodeen naftood hurayaashii dagaalkii maalintii dhoweed ku geeriyooday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu dhammaantood naxariista janno ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariista janno ka waraabiyo eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodii iyo guud ahaan shacabweynaha SSCna samir iyo iimaan ka siiyo kuwii ku dhaawacmeen ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad degdega siiyo kuwa jiida hore taagan ee difaaca dalkooda iyo dadkooda iyo dhammaan midnimada Soomaaliyeed difaacaya ee diidan kala goynta iyo kala qaybintana waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu guushiyo gobonimada siiyo waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dhammaan shacabweynaha SSC meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba inay isu taagaan midnimadooda iyo difaacooda ayna ka wada qayb qaataan sidoo kalena difaacaan midnimada ummadda Soomaaliyeed ee hore ugu soo dagaalameen ugana saareen gumaystayaasha halkaasi kusoo duulay ee dhammaan awoowayaashii u dhinteen waynu wada ogsoonahay haddana marka leelaynu isu taagno kala qaybinta inagoo diidan kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed difaacanayna deegaanadeena hooyo ee SSC maasadisana baan daawadayaal intaasaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu soo tabinaynay shir saxaafadeed ay magaalada London ku qabteen ururka dhalinyarada SSC oo sidoo halkaas oo hadal ka soo jeediyeen gudoomiyaha iyo waliba xogayaha guud ee ururka sudo waxaa barnaamijkan idin taadihinayay ama idin socodsiinaya anigu ah Maxamuud Axmed Xasan